waxay wasaaraddu isku dayday inay qaybiso abuur isugu jira full stable foodka oo ay ka mid yihiin galleyda, hadhuudhka, digirta si wax soo saarka Puntland uu kor ugu kaco dadkuna ay ugu jeestaan in ay instead of cash crop-ku waqti badan la beerayo haddana la isku taxallujiyo in loo leexdo dhinaca kale loo yaqaano stable foodka taa iyadana dadaal badan ay wasaaraddu u soo gashay saakina waxaanu halkaan ku qaybinaynaa oo aan u qaybinaynaa gobolada Puntland inta aanu filayno in aanu waxba ka gaarsiin abuurka kan una tixgelinayno lafahanteedu inay tahay meelaha ku habboon oo la dhihi karo stable foodku waa ka soo bixi karaa ayaanu saaka isugu nimid halkan inaanu ku qaybino uguna yeernay dhammaan inta iyagu representative ka ah waxaanu wax u qaybinaynaa waxaa ka mid ah boocama oo aanu siinayno abuur qudaarta ah cash crop-ka ah aynu siinayno galley aynu siinayno digir aynu siinayno masago intaasuna ay yihiin abuurkaas aan ugu daba joogi doono feedbackna aanu ka heli doono filaynana inuu wax badan ka qaban doono wax soo saarka Puntland sidaas la mid ah xalin baa ku jirta buuro wadal baa ku jirta laac dheer baa ku jirta gobolka Nugaal iyaduna waxaan ka xusnay godob jiraan iyo eeyo oo iyaguna aanu rabnay inaan u qaybino gobolka Mudug waxaanu ka xusnay roox iyo xarfo sanaag baa ku jirta karkaar baa ku jirto intaasoo idil waxaan ugu talagalnay inaan u qaybino abuurka bal in arintaasi wax iska bedesha wax soo saarka Puntland waxaa jira waxyaabo kale oo iyagana aan ugu talagalnay inaan u qaybino sida godob jiraan oo qayla dhaan weyn inaga soo gaartay markii wasaaraddu ay tagtayna waxa mudan warka ugu horeysay inaan xuso BDRC oo iyadu u yeelatay opportunity inay halka tagto qaylaantiina soo gudbisay wasaaraddu iyadoo ka jawaabayso ayay waxay u dirtay guddi technical ah oo ka kooban 3 qof waxay ka soo gudbiyeen warbixino runtii xanuun badan wasaaraddu ku raabay taa iyadana waxay noqotay inaanu kaga jawaabno abuurka dambe oo soo socda marka xilli roobaadka hadda la gaaro inaynu siino abuur kadibna aynu siino qalabkii haamaha ahaa oo ay kaga tacaayilahayna kaga hortagaan si insectiga ama cayayaanka faafiya ee ku dhacay ama cudurkii ku dhacay soo saarkooda hoos u dhigay inay la dagaalamaan waxaan ugu maqannahay sidaas la mid ah marka ay abuurkan beertaan oo ay gaarto xilligii burashada ama soo bixidda ay soo bixi lahaayeen miraha waxaanu ugu talagalnay iyadoo lafaanteedu inaanu samayno daawooyinkii lagu tacaali lahaa si loola dagaalami lahaa cayayaankii dhibaatada u geystay godob jiraan taa iyadana waxaanu siinaynaa oo aan u raacinay haamaha lagu buufiyo suntuna insha Allah hadduu ilaahay idmo waxaanu rabnaa inaan u diyaarino godob jiraan si aan mar labaad arintaasi aysan u qabsan taana waxaan ugu mahad celinaynaa oo aan mahad weyn u soo jeedinayaa BDRC oo iyadoo opportunity u heshay in ay arinkaasi la kulanto una soo gudbisay wasaaradda qaylaantii ka timid wasaaraddu ay arinkaasi ka jawaabtay sidaas la mid ah waxaanu rabnaa iyaguna inaan u qaybino haabahaasi sunta ah meelo kala duwan oo aanu filayno inay wax weyn ka tari doonaan oo hadda run ahaantii lafahanteeduna aan ku tuhunsannahay in ay cayayaankaasi uu ku hayo dhibaatooyin weyn si markaa looga gaashaanto iyaguna runtii waxaan u qaybin doonaa haamahaasi hadduu rabbi raalli ka noqdo waxaa jira hand tools oo yaryar aan ugu talagalnay beeralayda oo runtii aan oran karayo hadda in ku filan gacanta inooguma jirto laakiin waynu haynaa bilowgeedii waxaynu rajaynaynaa intaan ka badinaa soo kordhino maalmaha ka mid ah iyaguna inaan u qaybin doono beeralayda wixii karaamkeena ka wasaarad ahaan waxaanu ku tacaalaynaa sidii Puntland ay isaga filaan lahayd dhinaca beeraha waana wadada aan taagannahay waana siyaasadda dawladda waxa ay ku fadhiso oo ah horumarka Puntland waliba dhinaca beeraha in dawladdu ay gacan weyn ka geysato
كوزارة هذا المجموعة سلاسل لم يدار بيرلا إذا وحنو كفلنا يجونا إلى لنكودا كدجا دلالين قارها نسكشتوين كوانورن كرايو نقال بري إيو مدبا وشقي مناسبة نقل حيسا وحنا في الآية رنتي إلى تاني نقدم تو مدوها السادة بنتلان لناع وعقبتك وأنا ما سنتي